مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة، محاضرتنا إن شاء الله القبر بيت الغربة. نستهل في هذه الأبيات. waxaan goboldhig uga dhiganaynaa gabaygan. laysa alghariibu gabayga waxaa tiriyey nin saalix ahaa oo wanaagsanaa. laysa alghariibu ghariiba ashaami walyamani, ina alghariiba ghariibu allaxdi waalkafani. wuxuu gabaygani kuu sawirayaa qofka markii uu xanuunsado laga bilaabo ilaa markii uu dhinto, markii qabriga la geliyo, markii xoolihiisa la qaybsado, intaasoo dhan buu taswiir ku samaynayaa. qofka qariibka ah ma aha qofka jooga waddan uuna aqoonin, laakiin qofka qariibka ayuha alaxibba waa qofka qabriga iyo kafanka keligii ku noqda. safarku wuu dheer yahay, sahayduna way yar tahay, quwadaaduna way daciiftay, mowdkuna wuu ku daba socdaa. wuxuu qof waliba leeyahay dunuub aadan adigu garanaynin, laakiin allah subxaanahu wa tacaala baa og oo ka warqaba. albaabada waad xirataa adiga oo macaasi iyo xumaan samaynaya, allah subxaanahu wa tacaalaana indhaha ayuu kugu hayaa. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. سنبر الحشدة يا ميلها حن قفك مريو أديقو هالمانسان كدافيسا وحكدن بيا وقوم مو قلبك قبي دونتا. أهل كاقي مركي آد حنونسطو قوش عيال وجيفيا adiga oo joodariga lagu gedgediyo marba dhinac u gadoomaya. waxay yiraahdaan tabiib iyo dhakhtar hal raadiyo si uu qofkaasi cilaaj iyo dawo u raadiyo, laakiin geeridu markay timaado dhakhaatiirtu wax ma taraan. nasciga iyo sakaraadkii baa bilowda, qofka nafta ayaa laga siibayaa iyadoo oo xanuun badan, curuqdiisa iyo qofka xididadiisa ay maartay si naxariis la'aan ah ay dhacayso dadka qaar in loo jiido, dadna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u dhimriyaa. ruuxda ayaa qofka ka baxda, qarqarada qofku markuu ku jiro iyo iririqu uu ka socdo, indhaha ayaa loo laabaa, dadkuna way ka gadoomaan naftu markay ka baxdo. waxayna raadiyaan inay kafankii doonaan oy soo iibiyaan. qofkii kugu jeclaa waa qofka xilligaa raadiya qofkii ku dhaqi lahaa. qof baa kuu imaan doona ku dhaqa, rag iyo dumar waxaa tahayba. qofkaasi markuu kuu yimaadana dharka ayuu kaa saarayaa, isaga ayaana ku gedgedin doona. alwaaxda waa meesha laysku dhaqo ayaa lagu dul dhigi doonaa, iyagoo biyahana lagugu dul shubi doono. biyihii ayaa dushaada lagu shubi doonaa, 3 jeer baana lagu dhaqi doonaa.
iyo intii ka sii badan kadibna wuxuu u wici doonaa qofka ku dhaqaya warka fanka ii keena ayuu oran doonaa waxaa lagu xiri doonaa dhar aan ahayn dharkan hadda aad qabto ee qaabka ruux taagan iyo ruux soconaya loogu talagalay saahida ku raaci doonta dhar ahaan marka la yidhaahdana waa marada cad ee lagu xidhay iyo xanuudka uduga markaa qofka la marinayo intaasaa ku sii raaci doonta adduunkii qofka waa laga saaray isagoo laga yaabo saahidiisu inay yar tahay waxaa qaadi doona 4 qof iyo in ka badan iyaga oo inta kalena ay daba socdaan mixraabka la gelin doonaa waa meesha masaajidka lagula tukado qofka qof baa hormari doona inta kalena way gadaal istaagi doonaan sallu calaya salatan la rukuuca laha wala sujuuda la'alla allaha yarhamuni kadib waxay dadku tukan doonaan salaad aan rukuuc iyo sujuud midna lahayn allah subhanahu wa ta'ala haynoo naxariisto kadib qofka waxaa la gelin doonaa qabriga si degan baa loo gelinayaa qof baana iilka dhigi doona oo luxudka markaa gelin doona qofkaasi wuxuu ka faydi doonaa wajiga kadibna si uu u arko wa askaba dam'a min aynayhi yanzuruni ilin baa inta badan qofka xilliga ka soo daadata wuxuu leeyahay markuu halkaa ku hubsado war ciidaha lagu hoobiyo ciida ku soo roga war thawaab iyo ajir raadsada oo qofkan hala aaso fi dhulmatil qabri la umun hunaka wala abun shafiiqun wala akhun yu'annisuni qabriga hooyo kaagama horeyso qabriga aabbi iyo walaaltoona kaagama horeeyo kuu wehel yeela fariidun waxiidun adigoo kaliya baa lagu dhigi doonaa waana lagaa soo gadoomi doonaa maxaa xiga ayuha laxibba xilliga min munkarin wa nakiirin ma aquulu lahum qad haalanii amruhum jiddan faafzacanii labadii malag baa imaan doona waa munkar iyo nakiir su'aalahoodii bayna bilaabi doonaan way ku soo fadhiisin doonaan kadibna su'aalihii bay kugu bilaabi doonaan adigoo laga yaabo dembigaagii inaad u xirxiran tahay taqaasama maxaa xigi doona xilliga xoolahaagii waa la qaybsan doonaa taqaasama alahlu maalii bacda man sarafuu xoolihii baa la qaybsan doonaa wasaara wisrii calaa dahrii fa afqalanii wixii dembi aad lahaydna adiga ayuu kugu hadhi doonaa yaa nafsu kuffii can alcisyaani waktasibii ficlan jamiilan lacalla allaha yarxamunii war qof walbow ka joogso cisyaanka iyo xumaanta aad samaynayso ficil wanaagsanna la imow lacalla allaha yarxamunii wayarxamuk si ilaahay noogu naxariisto yaa nafsu wayxaki tuubii ha loo toobad keena allah subxaanahu wa tacaala camal wanaagsanna ha lala yimaado ayuha alaxibba xusuusta mowdka iyo geerida haddii rasuulku u amray in la xusuusto oo uu yidhi war badiya akiruu dikra haadimi ladaat war macaangooyaha oo ah mowdka ha la xusuusto xusuustaa mowdku waxay keentaa qofka qalbigiisa waxay ku abuurtaa rahba oo cabsi ah waxayna ka iishaa oo ka leexisaa adduunyadii tagaysay wuxuu noqdaa qof mar walba ka fikiraya qabriga iyo xisaabtu maxay noqon doontaa qofku waa inuu xusuusto qabriga iyo ashkaalka iyo qaybaha uu leeyahay waa inuu xusuusto dadkii isaga ka horeeyay waa inuu xusuusto marka ciidda lagu hoobiyo waa inuu xusuusto marka jirkaaga hilibku uu ka dhammaado ee duudka iyo dixirigu ay ku soo haraan waa inuu xusuusto carabkii aad ka hadli jirtay eed ummadda ku xaman jirtay marka dixiriga iyo duudku ay cuni doonaan linafsika ya bnu aadam waxaad xusuusastaa marka firaashka lagu saaro ee lowxii lagugu dhaqi lahaa lagu dul saaro ee kafan laguu xiro ee ahalkii iyo aqaaribtii iyo asxaabtii kaa wada tagaan yaa maqruuru tafakkar qofkan kadsoonow waa inaad fikirkaaga soo celiso sakaraadka iyo mowdka waa inaad ka fikirto sucuubada iyo adaygiisa waa inaad ka fikirto mowdku waa yabooh laysu ballan qaaday oo runa waa midka ugu cadaalad badan waa mid qalbiga kawiya waa mid indhaha ka oohiya
ومد جماعاتك يددك صاحبة هاكلا جية ومد معانك قوية ومد أمنياتك يا وحي أتكفي كري جرتينا سو أفجر الدونة